بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم وبعد إن waxaynu ka soo baxnay in soo baranay sida loo isticmaalo maktabada shaamila oo ila 14 cashar aynu ka soo sameynay dabcan maktabada shaamilada aan sharxaynay waxay ahayd maktabada shaamila oo kuwii la adeegsan jiray oo kombiyuutarada ku jira ah hadda isdaaraadka socda ama hadii ilaahay ku ranyahay soo bixitaanadii ugu dambeysay oo laga yaabo in hadii ilaahay ku ranyahay hadda bila ka horba ay soo baxday dhammaan habka aan sharxayna uu ka bedelan yahay oo hab kaleeta ayaa loo soo diyaariyay oo macnaha haykalkii muuqaalka ayaa sida ka bedelan marka casharkeenan waxa uu ku saabsan yahay hadii aadan haysan maktabad shaamil ah oo maktabooyinkii kitaabada kombiyuutarada ku jira la adeegsan jiray mid kamid ah hadii aysan kombiyuutarka kuugu jirin casharadan waxa laga yaabaa wax badan aysan ka anfacaynin hadii aad u baahan tahay marka maktabad shaamil ah inaad hesho oo aad kombiyuutarkaaga ku shubato casharkeenan maanta kaas ayaynu kaga hadli doonaa hadii Allahu yiraahdo waxaad soo raaci doontaa linkiga aan ku siin doono oo hadii ilaahay ku reeyay muuqaalkan xaqiisa hoose aad ka heli doontid ayaad ku soo dhufan doontaa linkiga markaad ku soo dhufatidna wuxuu ku keeni doonaa halkan waajihadan hadda inoo muuqata ayuu ku keenaya waajihadan inoo muuqata waxay ku leedahay maktaba shaamila الرئيسية أقسام المكتبة فهرس المؤلفين حول المشروع تنزيل المكتبة اتصل بنا إذا واحد كل فندق أنت هدي قال له يراهده وحل يراهده تنزيل المكتبة تنزيل المكتبة مركي عد كل فوتو السيدان أي نقانيسة مكتبة دو waxaad aragtaa halkan hoose in ay ku jiraan kutub baa ku qoran nuskha muharram baalka la yiraahdo 1443 waa sanadka hadda aan ku jirno marka laba khiyar ayuu nasiinayaa nuskhatan mashxuunatan bil kutub iyo nuskhatan mufarraqa nuskhatan mashxuunatan bil kutub waad soo degsan karaysaa oo halkan ayaad ku dhufanaysaa hadda soo dejinaysin waxaad kale ku dhufan ka halkan waxyaabahaas oo dhan ayaad samayn kartaa Telegram baad aadi kartaa waa sidaas waxyaabahaas oo dhan baad samayn karaysaa laakiin nuskhadaasi waxay u baahan tahay internet xoog badan iyo waqti inaad geliso oo waqti badan ayaa soo digitaankeedu qaadanaya hadii aad u baahan tahay maktabadii oo bannaan oo markaad soo dejisay ka bacdi aad kutubtii iyagana soo dejisana oo ka fudud soo dejinteedu waayo waxa weeye 207 MB megabyte marka waxaad ku dhufan doontaa halkan ayadana fudud markaad halkan ku dhufatana soo dejinta ayuu bilaabaya hadii internetkaagu iska yar yahay waxaad adeegsan doontaa qodobkaas marka ay soo degto digitaanku dhamaado ka bacdi waan soo dejiyay anugu markaad soo dejinta bilowd ee dhameysana waxay kuugu iimaanaysaa hadii Allahu yiraahdo aad ka heli doontaa meesha la yiraahdo magaceeda yani kombiyuutarka ayaad furi doontaa my computer waxaad dhigi doontaa download waxaad ka heli doontaa ayadoo sidaan u samaysan oo WinRAR-ka ku diyaarsan marka WinRAR-ka ayaa dhamaan kaliya ku dhufan doontaa shaamila halka hoose ayaad ayana dhamaan kaliya ku dhufan doontaa hadii ay saan kala kugu soo baxda ran baad dhihi doontaa hadii kale tan tasfiidka ayuu bilaabi doonaa waxa uu ku weydiinayaa markaas xagee ayaad maktabadan ku dhiga ma C baan ku dhiga ma D baan ku dhiga ma E baan ku dhiga waa hadii kombiyuutarkaaga harddiskiisu qaybsan yahay idan waxaad dhihi doontaa D E dhig laanahu C waxa ku jira programka kombiyuutarka marka hadii uu kombiyuutarka cilad ku timaado oo formaad u baahdo waxa laga yaabaa in macluumaadkii ka raaco laakiin hadaa D dhigatana E dhigatana meelaha kaleeto kombiyuutarka meelaha laga formaado maahan oo curdatan lil khatar inay ah markaas ayaad waxaad dhihi doontaa aniga D ayaan dooran doonaa D dhig baan dhihi doonaa soo dejin ayuu bilaabi doonaa soo dejinta marka 100% yiraahdo ayuu haddana wuxuu bilaabi doonaa inuu kiciyo tayib anigu waan soo dejiyay waan furay marka waxaan tagi doonaa qorso D waa kana shaamila sidan ayay u dhigan tahay markaan dhaban kaliya ku dhufta haddana waxaan ku dhufan doonaa halka qalinka ku taagan yahay maktabada furan ayaan ku dhufan doonaa dhaban kaliya waxaan sugi doonaa inta ay kacayso maktaba shaamila laakiin marka koobaad aad soo install gareyso shaqadan ku sheegay aad soo marto waxba kaaga ma baahna oo hadii la ku reeyay kaliya waxay ku siinaysaa waqtiga ay soo kacayso ayay ku siinaysaa waa tan hada maktabada way noo soo kacday waxaad aragtaa maktabadan inay ka bedelan tahay dhammaan qaababkii horeeto
ay maktabadaheenii hore u shaqaynayeen oo si kale ay u shaqaynaysayo way haddana waxaad aragtaa xagga kore waxaa ku taala 8,008 kitaab waa kitaabada aan soo dejin karayo oo haddii ilaahay ku reen diyaarka waa inaan soo dejiyo haddii aan ku dhufto korkeedana halkan ayuu ii furi doonaa khaanada halka ayaan ka soo dejin doonaa kutubta oo dhan jamiic baan dhihi doonaa kulligood xagga ayuu geynayaa haddana waxaan dhihi doonaa idaafatu ljamiic wa bad taxmiil kulligood ku dar haddana bilow bahalka leeyahay installki sidaan ayuu dhihi doonaa markaa installka ayuu ku wadi doonaa kutubtiina uu kugu soo xareyn doonaa meesha haddii aan loo yiraa way intaasi waxaa weeye sharaxitaanka sidee maktabad ula imaan karaysaa cusub waad usoo degsan kartaa waa haddii aadan haysan maktabad hore laakiin waxaa xusid mudan maktabadan cusubi inay ka bedelan tahay maktabadii aan sharxaynay oo ay quunaadkii ay sidii qaabka ay u shaqaynayeen macnaha u muuqanayeen iyo qaabka kuwana u muuqanayaan ay kala duwan yihiin waxqabadku waa isla kii tiibaana waxaa laga yaabaa in ay haddii ilaahay ku roon yahay fududeyd tanina waxay kaga fiican tahay way ka dhaqso badan tahay oo markaad searchiga samaynaysid ama baxtiga samaynaysid way ka dhaqso badan tahay haddaba waxaynu soo gelin doonaa haddii ilaahay idmo casharo kuwan ka bedelan oo haddii ilaahay ku roon yahay markii aad rabto baxtigaaga inaad hormariso sidii aad yeeri lahayd aayaadka qur-aanka kariimka si aad ugu soo dari lahayd barnaamijka word qur-aan baan sharxi doonaa haddii ilaahay qur-aan word baan sharxi doonaa haddii alla idmo waxaan sharxi doonaa haddii ilaahay idmo barnaamijkii kaleeto ah musxaf almadiina linnaashir alxasuubi sidoo kaleeto waxaynu sharxi doonaa qawaalibta loo adeegsado sida baxtigaaga loo qurxiyo loo hagaajiyo loo horumariyo marka haddii aad tahay arday jaamacadeed baxti u diyaarsan u diyaariyo jaamacadeed ama baxti kaleetaba ha noqdo bacdi magister ama doctora ama haddii ilaahay ku reen baaj waxaan ku siin doonaa macluumaad aad haddii ilaahay ku reen maktabada baxtigaaga ku hormariso oo aad kaga dhigto baxti macquul ah oo wax ku ool ah oo soo jiita dadka indhahooda haddii ilaahay idmo insha allah waad nala socon doontaan gadaal ayaynu kusoo gudbin doonaa casharo kale haddii aad u baahanta linkiga maktabada shaamil aad kasoo degsanaysidna casharkeennan ama videogeennan hoostiisa ayaynu kusoo bandhigi doonaa haddii alloo yiraa waan idin salaamayaa magacaygu waa saciid axmed faarax assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu